السلام عليكم. waxaan rabaa inaan sameeyo falanqeyntii maantay maanta suuqa saan waay haddaan dheyga kasoo bilaabno dheyga waxaan shalay midaan duubay falanqeynta dhan way iga faktay waa duubay laakiin ma save gareynin nothing waa la baranaya cashar si boobsiisaan ku sameynaynaa falanqeynta inta maxaa ujeedaan kan ujeedaan xariiqintaan kor inta saan u saaran xariiqinta inta hoos aan u saaran waa indicatorkan oo ah waa indicatorkan previous days highs and lows la dhahayo marka wuxuu ku sheegaa maalinta ka hor daygii hore highgiisa iyo lowgiisa okay hadda u fiirisid kan highgii dayganeeto highgiisana waa la qaaday lowgiisana waa la qaaday waxaan ugu dambeysay intuu ku xiray suuqa marka maxaa waay marka inuu pullback sameeyo pullbackgiiu sameeyey ujeedaan laakiin kan waa inside bar ujeedaan maadaama inside bar yahay suuqa maanta marka waxaa waay baa inay u jabiso ama se inuna jabiso based on structurekaaga okay kan waa just extra confirmation dayga marka highgiisana waa kan lowgiiskana waa kan aniga waxaan aaminsanahay in highgiisa la qaadayo and then we will see insha Allah 4 hourka ayaan usoo gudbaynaa iyadana 4 hourka hadaa fiirisid 4 hourka highgiisa lowgiisa ma haysta laakiin anaa dhigto meeshaan waxaa lagu qaaday liquidity keliya ma ahan waxaa lagu qaaday daily 4 hour highgiisa lagu qaaday waxaa kaloo lagu qaaday 4 hour highgiisa kii kale waa kana sorry kaas ma ahan kan waa 4 hour kan dalkan 4 hourkiisa inta lagu qaaday kan dalkan 4 hourkiisa oo highgaas lagu qaado hadda waxaan sugeynaa waa pullback and then inuu si fiican high ugu qaado ama inuu xataa lowga qaadana macquul way welsi marka maxaan sugayaa weeyaan suuqa aniga suuqa waa soo jeedaan daily basis wuxuu ku jiraa uptrend may 4 hour dailyga waa sell soo jeedaan dailyga dailyga wuxuu sameeyay joganeeto xaaladaan ku jiraa jog keligiis hadduu dhaco jog wuxuu ku geyn karaa keliya ilaa iyo supply hadhow sellka laga soo aado waayo suuqa markii pullback sameynayo waa inuu sameeyaa jog if this is impulsive key oo weega macnaheeda waxa waaye pullback weega waa inuu dhacaa daily jog marka si aan u dhahno daily jogan waa valid oo inuu suuqa buy u daruuraba dan waa inuu xataa dhacaa maxaa la dhahay boss daily boss markaas waxaa dhigi kartaa okay now ma loo socdo keliya kan waxaa loo socda mid ka koreeyo wax saas camal xoogaa in baa lasii yaraa okay haddaan kusoo noqono marka 4 hourkeena wuxuuna leeyahay xaaladana lagu jiraa naga xir suuq wuxuu ku jiraa order flow kanuu soo taabtay uu noqday kanuu soo taabtay ilaa haddana wax 4 hour kan soo taabto kuma jiro ma jeedaan waxaan dhan waxay noqon kartaa inducement inkastoo kan uu kan qaaday wax yar laakiin aniga waxa waaye waxaan ka sugaya 4 hour boss inuu boodiga jabiyaan rabaa okay taas ka soo marka waxaa ku xigo hadda fiirisaan inta lacagtan si ku socoto si ma ahan oo runtii baa xoogan ii direyso that's something I'm a little bit marka unless baa xoogan hadartan ima direyso we will see 15 minutes kan tagayna easy 15 minutes hadaan tagna maxay sheegaysaa 15 minutes wuxuu noo sheegay xaaladda in lagu jiro okay day 4 hour kan qari nadiifan ku arkayna weli yani waxaan isleeyahay inay korkaan timaado oo ay supplygaanito soo qaado si usoo qaado inay buy aado haddaa fiirisay impulsive kaana dhacay impulsive kaan hadda rangegiisa lagu jira every maxaynu niri order block oo imbalance ku jira in lasoo cover gareeyo shalay kana soo cover gareeyay aniga actually waxaan ka qaaday buygan weli ku jiro
so I'm hoping inuu weli igu sii socdo inkastoo fool xun yahay suu ku socdo, so I don't like markay soo fool xun yihiin. Anyway, and so aan idin furo okay, maxaan u jeednaa inta waxaan u jeednaa suuqaaniito wuxuuna leeyahay xaaladaniito oo ah inta waxaa ka dhacay 15 minute pullback boss, so internal boss. Okay, so intuu nageeyay ilaa iyo intuu nageeyay, so hadda waxaan sugaynaa suuq inuu sameeyo maxay haddii boss la sameeyo waxaad dhiganaysaa 50% oo equilibriumka Soomaaliya premium discount waxaad sugaysaa 50% ilaa lagu soo galo 50% hadii la soo galo there is from this candles to this candle marka candle kana weyn mujidin waa kan inta ka soo bilaawdo iyo weegi ka hooseeya waa ku daray because otherwise marka maxaan ku sameeyay waxaan tagay 5 minute-ka waxaan ku sameeyay refining. So refining ka waxa idin sheegay hal candle ma laba candle waxaan isku darsadaa to keep it maxaan lahayn inuu ii soo taabto. So marka ani hadda waxaan sugayaa suuqan in first of all hadda liquidity meeshaan wax yar igu sameeyo will be the best option wax yar oo liquidity inta igu sameeyo and then boom buyers aada markaas something like that aan ka sugayaa. haddii saas dhicin maxaa dhici kara oo ku xigo in uu loogan jabiyo oo uu imaado zoonkaanito taas iyadana way dhici kartaa oo zoonkaanito markaas ito buy ka aado. Still I'm expecting in aniga somehow buy in oo high-gi la jabiyay 4 hour-ka high-gi la jabiyay lagu noqdo. That's what I'm expecting. We will see and then taas dhacayso marka dhown waxaan idin soo dhigi doonaa insha Allah midka aan ku sameeyo maxaa la dhahaa for hadhow trade kan qaato haduu ii anfaco ani aan soo xus waxaan ka sugay. So inta haddaan waxaan helay meeshan entry like way dhaaftay. Sorry guys, marka waxaan inuu meeshan liquidity u sameeyo the best aan leeyahay oo ii sameeyo markaas ii baaqi hatta haduu inta soo taabanin sida rabo uusan meeshan iigu soo taabanin uu ka noqdo meel saac camal it is still okay. Why? Because haduu joogan qaadanaya waliba hadaan jooga ka cabsado maxaan sameynaa waxaan sugi karaa flipka ku xigo meeshaas aan ka qaadan karaa and then baan qaadan karaa haduu saas sameeyo. Haddii kalena waxa the best option wuxuu waa inuu ii imaado 5 minute-ka kan ku sameeyay soo jeedin kan oo 5 minute inuu ii imaado markuu 5 minute kan ii imaado insha Allah aan markaas meeshaas ka qaato ma weyna SL ahaan risk entry waa ku fikiraa mal qargan qaadadana I'm not sure about it because risk entry waxaan u dhigtaa hadaan baxay waxaas laakiin hadaan kor joogo isbara inaan indhaha ku fiirsado wixiiga. So measures inuu ii imaado and then measures ii tago risk 5 pips way, so it's worth 5 pips waa ku geli kartaa runtii risk entry so so waa ku geli karaa runtii maxaa la dhahaa risk entry is worth hatta do SL ka alo 50% because risk entry never 1%, always 50%. So something like that sugaya haddii kan u koos marana ani I don't mind hoostaas duu aado kalan ka soo qaadana duu dhaho okay suuqa uu toos sal u aado oo aan ka dareemo inuu waxa dhan liquidity ku xisaabo which is high probability and not as high as buy-ga aniga ahaan and high probability buy-ga laakiin waa almost 40%. Buy-ga 60 selka 40%. So duu dhaho liquidity as dhan qaadaya markaas waxaan sameyn karnaa oo meelahan labada meelba igu soo jabiyo waxaan sugayaa markaas inuu flip ii sameeyo maybe on New York session markaas aan sal u raaco. That's the only option is left for me. Waarka doona insha Allah ka baxda markii aan trade qaatana waa idin soo dhigi doona qalbihi meelaas xataa haduusan TV ku dhicin dayoolin anyway waa ka qaaba ka goosana. So billahi tawfiq. السلام عليكم قرابو وقتنا وقبتي لعقت aan saan ku qaatay waxaas aan ku micneenayo
soo falanqeynteeda jaawa soo sameeyay soo directly waxaan aadaynaa 15 minutes intaan aadamo you have to cut okay 15 minutes waa kana waa wada furay saa u jeedaan xaaladda aan ku jirno maxay noo sheegaysaa why I have this sorry oh no okay sorry marka meeshaan suuqa maray if I'm not wrong marka wax soo dirayay ada zone kaneeto so maxaan ka sugayay marka waxaan ka sugayay let's go to the 1 minute just inuu suuqaneeto oo liquidity hada sameeynayo and then liquidity markuu sameeyo oo liquidity markuu sameeyo ka bacdi in oo what liquidity markuu sameeyo liquidity qaado ilaa inta ay imaado oo ka bacdi baa hadii kale xataa waxa laga yaabaa inaysan aadin meesha ka soo noqotaan dan hada joog ku sameeyso and then I'm taking joog hada meel ahaan waxay ku xiran tahay si had u tagto so that's mostly what I'm expecting so suuqa marka muxuu sameeyay suuqa wuxuu sameeyay sidoo uu waday liquidity bom liquidity uu qaaday فهمتي لكن markuu liquidity qaaday ma uusan iisoo taaban meeshaan rabay so meeshaan wali waa mitigated so marka maxaa dhacay inta wuxuu ka sameeyay chock marka hadii zonki aan ka sugayay loo dhawaado oo refine waaye loo dhawaado laakiin aan arkin uu sameeyay chock 1 minute markaaseeto 1 minute kaanid waa value garaya waayo kan markala loo soo noqon doonaa ama loo soo noqda badanaa so this is mostly what I was expecting and actually waxaan xoog saaray in inta Egypt that will be very beautiful inuu meesha inta Egypt oo ka bacdi soo noqdo kaasa ku fiican higher time frame so suuq muxuu sameeyay marka suuq ma uusan jibin oo jeedaan uu soo noqday meeshaan uu yimid meeshaan uu had mudda this is per se flip soo jeedid so flip ka waa kan kana maxaa la dhahay flip ka inta ka sameysmay actually the flip ka waa kana let's make it hello kan muxuu ahaa marka wuxuu ahaa supply-gi flip kaneeto soo doontay so marka waxaan arkay in xaaladan ku jirto waxaan in hoostaas lagu aado adag tahay marka inta ka gal and then see what happens so zone kana ka gal ilaa iyo inta SL-kayga wuxuu ahaa 4 pips hadaan qadaneen kadibna waxaas ilaa iyo ina u haysid actually inta waxay ahayd TP-gayga koowaad amina qayb ku xirto intana inuu ii taga future-ka ayaan ka xigay laakiin maadaama kan la soo mitigate gareena absolutely marka meeshaan taag marka waxaan ka qaybay intriyadan galay mid ka weyn intaan TP u dhigtay kan kale inaan ku sii daayo so let's see bum waa dhaqaaqay so TP-gi koowaad wuu ii tagay I have to find something aan ku calaamadaysto okay and marka meeshaan amal TP-ga koowaad so lacagtii inay iisi dhaqaaqdo laakiin maadaama aan kan soo mitigate gareenin joggaanetana loo soo noqon lacagta waxay sameyn kartaa laba wax inay inta timaado oo joggaaneta markaasita ay xushmayso okay ka bacdi inta ka baxdo ama se inuu iisoo imaado unmitigated ku baxo marka daa kan xataa aan ku galo maadaama xoogaa ka qabsaday kan hadaan ku galo oo 0.50 kana ku galo 1% kan actually hoose TP entry u dhigta kama aan bixin waaye mar refine ka 5 minutes haduu imaado risk entry inaan ku qaato I like it waaye marqa inuu joog ku sameeyo iska dhaqaaqaya so why not laakiin waa waxaan ku galaa waa loss zero riskless kadib maxaa dhacay lacagtii waxay la laabato way soo noqotay kadib markay soo noqotay actually meesha xadaan liquidity sameynaysaa fog ay ku sii dhahaysaa laakiin taas ma dhicin
suuqa unmitigated yada mararka qaarkood you don't expect. So inta waxa waaye zonekan ka sugayay way activate garaysay. So laakiin waxay igu sameysay SL iga dhacday and then kana ii taabtay. So kanaan ka soo galay SL wuxuu ahaa 5 something meelaas ama haddaan qaldaneen and then boom tradekaasaan soo galay kan SL iga dhacay kana SL iga dhacay kana marka lacagta way dhaqaaqday soo qurux badan no return marka soo taad waa inta choke ku sameysay soo jeedaan marka choke ku sameysay waa choke ugu horeey boom TP and it was beautiful. You know mararka qaarkood marka what I do aniga maalintii waxa weeye inaan dhigto supply-ga iyo demand-ga asleeyahay suuqaneeto waa laga push garan karaa ku extreme aan u dhigtaa. Okay, so marka suuqa meelaha marayaan dhahno so suuq wuxuu ku sameeynaa mararka qaarkood kanu soo taabanaa ka bacd kanu aada ama se kanu soo taabanaa ka bacd kanu aada. So supply to demand ama demand to supply, that's or 15 minutes, that's what I target. Marka dhibka kaliya jiro waxa waaye haddii aad maxaa la dhahay supply-yada iyo demand-yada aysan kuu saxsaneen ama TP-ga asan kuu taaban kuu soo noqonaa ama something like that. So haddii meeshan ku aragtid supply inta ku dhex jiro camal then is better in supply-gaas wax ku xiratid si haddii kan aan tinkan lagu soo noqdo at least aad ugu yaraan 50% if not more aad ka xiratid si aad markan wax u soo xarsatid. So that's what happened. It was actually beautiful. Shalay maanta waa 23 soo horaan ka soo dhigid ma 24 maanta istaqbala kii 23 maanta ugu rason duwa recap waa iga khaldamay. So kana maanta marka soo duuba inshallah next week I will try inaan mid kale soo duubo kan waxaan 24 hour 23 waatana iyadana 23 trade kan waaye asana waan ku jiray ilaa TP ay ka dhacaysay waan ku jiray iyada naftigan maxaan sameeyay. Actually I was not expecting tan inay inta ka soo noqoto way soo baxday haddana way ku socotay waxaan ka baqay marka inay igu noqoto choke waxaas igu sameyso. So actually waxa uga baxay qayb waxaan ka xirtay I think marka arkatan inay soo dhacayso hada meelaha amalan qayb ka xirtay inta kale maxaa la dhahay SL-kiisa u daayay maadaama qayb ka xirtay alxamdulillah way noqotay 7RR laakiin ka yaraan ka qabtay. Of course 7RR waa trade-ka daama qashi dad ku dhahay 7RR waa trade-ka it doesn't mean adina 7RR ka qabsatay. Kana waxa weeyaan how much ilaa inta ahead let's put it up to this point and 5RR this is SL so مجدين SSL كان اسكحر ناي okay كان يقال so at the end of the story you know profit كاكيلس وبدني هاي سان مركا وشغل سنة so to me each كيجا each it's very difficult to find each because marba kafakani like this is supply to demand supply to supply because markuu ku jiro impulsive ku dhaco waa inuu soo taabta meel walba mitigated ah before uusan u dhaqaaqin impulsive. So laga yaabo hadartan kaneeto haduu kana wali jiro oo mitigated ka ah probably in asagana la soo taabto and then buyga la aado balse saacada uu sameyn karaa boom. So waxaan arkaynaa isniinta because habeenkii isniinta dhaqamadiisan ka dareemeynaa haduu buy ku socdo haduu buy si sell soo aada weyn hadii kale so intaasaan ku ekeynana. I hope my fast recap inuu yahay recap aad ka wada faa'iidi kartaan waa inuu next time inshallah video yaashi key flipka iyo
goorab duwan la ah caruurta iskoolka iga soo fadhiisato waa haddaan wax falanqaysto waa alxamdulillah okay codadkoodan waa ma maqli doontaan maalin kasta soo bear with me ay u bilaa tawfiiq